emotional manipulation ayaan maanta ka hadlaynaa iyo calaamadaha lagu garto. haddii adigu aad dadka kula dhaqantid iska daa, haddii lagula yimaado sidaa lagula dhaqmana ha yeelin, because waxay taasi muujinaysaa caafimaad darro aada u weyn oo halisa dee ma garateen, natiijo fiicani kama soo baxayso. so maxaa kamid ah 5 calaamadood baynu soo qaadanayna walaalayaal. ta u horeysa waxa weeyaan maxay ahayd charm iyo flattery waxa la yidhaahdo ammaanta. lagu ammaanayo goorma xilliga aad dib u yara baxdid, ama la arko inaad wax diidan tahay, ama la arko inaad iska tegaysid. si gaara xidhiidhada, okay, guurkaba aad bay uga dhacda, laakiin wada dhaqanka labada qof. okay, so marka la arko inaad dib u guratay ama sii socotid, in lagu ammaano waxay ama wanaagaaga markaa u muuqdo laga hadlo, waxa weeye waa siyaasad lagugu soo jiidanayo si lagugu soo celiyo halkii aad ka dhaqaaqday. talabaad waxa weeyaan silent treatmentka, in lagu aamuso. okay, aamuskaasi micno caafimaad qaba uu yeelan karo oo ah waxaan u baahanahay inaan arrimaha dib ugu noqdo kasoo fakero sifa caafimaad qabta oo dee waxbaan inaga hagaajinaya, dulqaad iyo sabir iyo qof muujinaya maaha. okay, silent treatmentka marka lagu aamuso waxaa ciqaab baa lagaaga dhigaya marmarka qaarkood, marka taa isaga fiirsada. okay, marna waa qof caafimaad qabo dib u buxoole bal arrimaha inuu dejino kasoo fakero, marna waxa weeye mid adigii lagugu ciqaabayo oo la rabo caadifadaadii in lagu abuse gareeyo. number 3 waxa weeyaan waxa loo soo gaabiyey DARVO oo ah defense, attack, reverse, victim and offender. waxa weeyaan tusaale, qofkii dembi uu kaa galay ayaad soo hadal qaaday oo aad ka hadashay, si been laguu sheegay, si adigu wax dhibaato aho waxaad dhibsato kaaga yimi qofkii ayaad soo hadal qaaday. marka qofkii muxuu samaynayaa? adaa markiiba wuxuu galaya difaac. okay, difaac ama wuxuu galaya attack. okay, ama waa lisdifaaci ama adiga ayaa lagu attack garayn oo dee saani lagugu soo hagaagay, ama waa la reverse garayn wixii dhacay. reverse waxa weeyaan inta la iska soo rogo dembiga xaggaaga lagu soo tuuraya. okay, dib baa lagugu soo dhirbaaxaya. dad fara badan waxaan arkaa khalad iyo koo gale ayaa adiga waxaan ku oriyay dusha lagaa saaray masana ahayd, maxaa waa ka adaa lagaa dhigayo qofkii dembiilaha ahaa. taasina maxay dhalaysaa? adigii lagugu gafay ee aan dembiga lahayn ayuunbaa is arkaya adigiyo dareemaya guilty, dembiile. waxaa laga yaaba waxaad is arkaysaa adigiyo raaligelin bixinaya oo si aanad isu ogeyn bay iska xambaartay dembigii, because wal manipulation baa lagugu sameeyey, wax inta dib lagugu soo dhirbaaxay lagu attack gareeyo la istifaacayba hal marun baad adigii noqotay dembiilihii madaxa intuu foorariyo sorry odhanayay tanaasuleyay. taasina aad bay khatar u tahay. adigoo lagaa gardarnaa oo lagugu gafay ayaa laguu soo diraya qof saddexaad, third party. okay, third partyga laguguma soo dirayo axsaan falid iyo wanaag iyo sifo indirect ah ayaa lagu basaasaya. yani adigii qofkii waa kanoo idinkay wax idinka dhexeeyaan. wadahadalku waxa weeyaan aanu idinka soo dhaafin ood mushkiladihiin idinku keligiin ku filantihiin inaad xalisaan, soo maaha. qof kale marka lagu soo diro maaha wax fiican in laydin soo dhexgalo, ma fiicna. waxa weeyaan qaab lagu basaasayo xaalkaagu wuxuu ku sugan yahay, waayo qofkan dembiga kaa galay dawaabu ku aamusay, qofkan xilis muu saarin ama iyaduba ismay saarin. waa kan qof kale oo saddexaad oo meesha ka dhex faa'iideysta ayaa la soo geliyey. waa nooc kamida manipulationka siyaasadaha qalooca. number 5 waxa weeyaan distraction, in lagu xawilo wixii mushkiladu ahayd miiska saarna ama wixii khilaafku ahaa in laga mashquuliyo oo wax kale lagugu mashquuliyo. okay, wax kale lasoo hadal qaado, jihadii aad u jeeday wixii aad rabtay inaad ka hadashay lagaa jeediyo meel kale, muujad kale lagugu furo, shucaac lagugu furo, signalka laga khalkhalinaya. okay, manipulation weeyaan. number 6 iyo ta u dambeysa waxa weeyaan doubting your ability. okay, qofku markuu maskaxda intuu ka abuse gareeyo uu kaa dhigo inaanad la-aantood noolaaneyn, inaanad waxba qabsan karayn la-aantood,
la-aantii waxba ma tihid meel ma gaadhaysid la-aantii way jiraan walaalayaal dad maskaxda waxaa kaaga shuba oo kaa dhiga inaanad adigii tallaabo hore u qaadi karin la-aantood qofka daacad kuu jeceli waa qofka ku odhanaya cidna uma baahnid ilaahay mooyaane waa isku filanta ee kalsoonidaada kuu dhisa ee cirka kuu geeya ee kaa reeba waxyaabaha xunxun ee caafimaad daradu ka muuqato okay walaalayaal haddaba calaamadaha haddaad idinku ku dhaqantaan joojiya okay waayo idiin midha dhali maayaan waxaad ka faa'iidaysana ma jirtaan khasaare ahayn dadka inta aan fahmayn marka waxaan lagula dhaqmayo waa laga yaabaa inay iska liqaan oo ay ku noolaadaan nolol gebigeeduba wada emotional abuse ah iyo emotional manipulation miidhana laakiin qofka waxaan fahmaya loolama iman karayo walaalayaal waxyaabahan waayo way iska fahmayaan calaamadihii way garanayaan dhaqankii bay garanayaan wixii bay kala shaandhaysan garanayaan way garanayaan qofkan waxaa ka keenaya waxan marka lama marsiin karayo marka maxaa inoo wada fiican dhammaantiin inaynu caafimaad ku wada noolaano kulligeen isfaham ku wada noolaano isu tanaasul isqadarin is ixtiraam qof kasta waa loo ixtiraamay dadnimadiisa awoodiisa xurriyadiisa qofna lagama qaado xurriyadda waayo ilaahay baa xurriyadda bixiya maskaxda maaha in laga abuse gareeyo maskaxda iyo qalbiga maaha in laga qabsado okay oo jeel lagugu xidho aad gebigaagaba noqotid hostage oo maskaxda waa meesha bini aadanka awoodiisa oo dhani taalo halkaa haddii laga abuse gareeyo way ku dhamaatay okay marka walaalayaal kulligeen okay aynu caafimaad ku wada noolaano ku wada dhaqano okay adiga ayay kuu fiican tahay markaad adigii xitaa iska ilaalinaysid waxaa aanad cidna ula imanayn adigu markaa iska ilaalinaysid waxaynaan lagula imanin kulli walaalayaal muhiim weeyaan okay I hope inaad ka faa'iidaysateen share gareeya repostna ku wada tuura idinkoo aad u mahadsan thank you